Isagu waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu saameynta badan caalamka. Waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa hogaamiyeyaashii ugu muddada dheeraa Bariga Dhexe, isagoo hogaaminaya dalka Iiraan wax ka badan 36 sano. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Wuxuu ahaa shaqsigii ka dambeeyay isbedeladii ugu waaweynaa ee dalkaasi ka dhacay, laga soo bilaabo xoojinta awoodda ciidanka ee ilaalada kacaanka Islaamiga ilaa loolanka adag ee uu la galay quwadaha reer galbeedka iyo gumeystaha Israa'iil. Xilli ay dunida Carabta gacmaha is saarteen ayna u jeesteen dhanka reer galbeedka, Cali Khamenei wuxuu Iiraan oo mar ahayd dal u janjeera reer galbeedka ka dhigay dal aan marnaba la iska indhatiri karin, isagoo dhidibada u taagay barnaamijka nukliyeerka ee nidaamka aan liicin ee Tehraan. Si kastoo reer galbeedka ay canshuuro ugu soo rogaan dalkiisa, haddana wuxuu ku guuleystay inuu dhiso shabakad isbahaysiyo mid saaxiibtinimo ah oo ka gudubta xuduudaha Iiraan. Muuqaalkeena maanta waxaan ku lafaguri doonaa hogaamiyaha mar dhow ku baxay gacanta cadowga, isagoo aan noqon hogaamiye shacabkiisa uga tegay meel cidlo ah iyadoo dagaallo culus ay socdaan. Cali Hussein Khamenei wuxuu ku dhashay magaalada Mashhad 19 Abriil 1939. Waxa uu ka soo jeedaa qoys sabool ah. Aabihii wuxuu ahaa caalim diineed ee madhabka Shiicada. Khamenei wuxuu waxbarashadiisa ka soo bilaabay barashada Quraanka Kariimka, kana baranayay magaalada Mashhad, kadibna wuxuu u gudbay magaalada Najaf ee dalka Ciraaq, kadibna wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Qom ee dalka Iiraan. Isagoo dhalinyaro ah, wuxuu noqday wiil ku xil dheer sharciga Islaamka ee madhabka Shiicada. Waxay ahayd sanadkii 1958 markii ugu horreysay ee uu la kulmay macalinkiisii ee Ayatollah Ruhollah Khomeini waxa uu ahaa wadaad aad looga yaqaan gudaha dalka Iiraan, wuxuuna ahaa wadaad ka soo horjeeda nidaamka boqornimada dalkaasi ka jiray ee Shaaha. Waxa uu Cali Khamenei ka dhigtay arday aad ugu dhow, isagoo xogaha muhiimka ah u dhiiban jiray si uu u gudbiyo wadaado kale oo isku aragti ahaayeen. Intii uu xogahaas u gudbin jiray, waxa uu la kulmay dhibaatooyin fara badan, isagoo marar badan xabsiga ay u taxaabeen ciidamadii sirdoonka Savak ee ka amar qaadanayay boqorkii xilligaas ee Mohammad Reza Pahlavi. Ciidamada Savak waxay u geysteen jirdil aad u daran intii u dhaxaysay 1963 ilaa 1975. Waxaa marar badan lagu xiray xabsiyo uu go'doon ku ahaa keligiis, laakiin marnaba ma uusan noqon qof ka tanaasula afkaartiisa. Isku dayo badan kadib, sanadkii 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini, kadib markii uu ka imaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska, ayaa ku guuleystay inuu kiciyo kacaankii xilka ka tuuray nidaamkii boqornimada ee dalkaasi ka jiray. Boqorkii xilligaas, Mohammad Reza Pahlavi, asaga iyo qoyskiisa ayaa isaga cararay dalka Iiraan una cararay waddanka Masar, isagoo ku marsiyooday inuu u baxay safar nasasho ah ama mid dalxiis. Kadib isbedelkii nidaamkii boqornimada ahaa, waxaa la aasaasay ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan, kuwaasoo si toos ah uga amar qaadanaya wadaadada talada haya. Ayatollah Ruhollah Khomeini ayaa noqday wadaadka ugu sarreeya ee ka taliya Iiraan xilligaas. Ardaygiisii Cali Khamenei asagana waxa uu u magacaabay xilka madaxweynenimo iyo xubin muhiim ah oo ka tirsan golaha kacaanka. 1981, Cali Khamenei ayaa ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa. Waxay bamb ugu soo dhex qariyeen cajalad duube, kaas oo ku qarxay isagoo khudbeynaya. Dhaawac ayaa ka gaaray gacantiisa midig, taasoo gabi ahaanba barlees ka dhigtay. Xilliyadii uu madaxweyne ahaa, Iiraan waxay ku jirtay xaalad aad u adag. Cali Khamenei isaguna wuxuu noqday mid aad ugu adeega dalkiisa, isagoo hogaaminaya dagaalkii Iiraan ay la gashay Ciraaq oo socday ku dhawaad 8 sano. Sidoo kale, Cali Khamenei waxa uu gacan adag ku qabtay amniga, isagoo meesha ka saaray kooxihii mucaaradka ahaa ee hubeysnaa, kuwaas oo doonayay inay afgambiyaan dowladda Islaamiga ah ee markaas la aasaasay. Waxa uu noqday mid ka tillaabsaday xuduudaha Iiraan, isagoo samaysanaya isbahaysiyo oo ay ka mid yihiin Xisbullaahida dalka Lubnaan, Xuutiyiinta Yemen, iyo ciidamada iska caabinta gumeystaha Israa'iil, iyo sidoo kale inuu iskaashi dhaqaale iyo mid militari la sameeyo dowladaha Shiinaha, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Muddo 8 sano ah oo uu hayay xilka madaxweynenimo, waxaa la soo gaaray dhimashadii hogaamiyihii Ayatollah Ruhollah Khomeini oo geeriyooday 3 Juun 1989, waxaana aaskiisa kasoo qayb gashay ku dhawaad 10 milyan oo ruux, taas oo ka dhigtay aaskii loogu qaybgalka badnaa casrigan. Golaha khubarada ee kacaanka Islaamiga ah ayaa maalintii xigtay ee 4 Juun 1989 u doortay Ayatollah Cali Khamenei hogaamiyaha ugu sarreeya dalka, oo markaas da'diisu ay ahayd 50 jir. Kadib qabashada hoggaanka sare, waxa uu Cali Khamenei xoogga saaray 3 waxyaabood oo muhiim ah markaas. Waxa uu waxbedel ku sameeyay dastuurka, isagoo ka saaray awoodda ra'iisul wasaaraha, taas oo xoojisay xilka madaxweynenimo. Waxa uu amarada iyo fargelinta ee siyaasadda hoos keenay hoggaanka sare ee wadaadka. Waa midda labaad, waxa uu xoogga saaray dib u xasilinta dalka kadib 8 sano oo dagaal culus ah ay kula jireen dagaalka Ciraaq. Sidoo kale, Cali Khamenei waxa uu xoogga saaray arrimaha dhaqaalaha dalka, isagoo maalgashiyo badan oo la xiriira dhanka shidaalka,
saliidda iyo gaaska dabiiciga ah u keenay dalkiisa. Dhaqaalaha dalka Iiraan oo dhan xafiiskiisa ayay si toos ah u hoos imaan jireen. Cali Khamenei waxa uu soo saaray falsafadda ah dhaqaalaha iska caabinta, taas oo loola jeedo in Iiraan ay samaysato wax kasta oo ay u baahan tahay iyadoo wajahaysa cunaqabatayn caalami ah. Dib u xasilinta siyaasadda iyo amniga gudaha waxay Cali Khamenei dhaxalsiisay inuu awood buuxda siiyo ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga. Waxa uu xoogga saaray aqoonta sayniska, waxa uu abuuray jiil cusub oo Iiraaniyiin ah oo ku xeel dheer cilmiga nukliyeerka, kuwaas oo si wadajir ah uga shaqeeya horumarinta awoodda ciidamada ilaalada, sida inay sameeyaan nidaamka gantaalada casriga ah, taasoo Iiraan ka dhigtay dal haysta keedka ugu ballaaran ee gantaalada balaastigada ah ee Bariga Dhexe. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo dowlado badan ay ka iibsadaan xilligan la joogo, iyo doomaha xawaareeya ee isqarxiya, iyo sidoo kale barnaamijka nukliyeerka ayay sidoo kale sameeyeen aqoon-yahanadii uu soo saaray Cali Khamenei. Waxa uu taageero ballaaran u fidiyey Xisbullaahida dalka Lubnaan, Xuutiyiinta Yemen, iyo ciidamada iska caabinta gumeystaha Israa'iil ee Xamaas, isagoo ku taageeray hub iyo lacago aad u tiro badan. Gumeystaha Israa'iil ayaa Iiraan wax badan u arkaysay dal lid ku ah in Israa'iil ay noqoto awoodda kaliya ee gobolka ka jirta, iyo isballaarinta Israa'iil ee gobolka, kuwaas oo ay aaminsan yihiin inuu yahay dhul loo ballanqaaday Yuhuuddu, waxayna in badan ku riixayeen Mareykanka inuu weeraro Iiraan ayna meesha ka saaraan xukunka Islaamiga. Dagaalkii hore ay ku qaadeen Iiraan waxa uu kusoo dhammaaday fashil iyo fadeexad weyn ay la kulmeen gumeystaha Israa'iil iyo Mareykanka. Sidoo kale kan hadda socdana ayaa weli wax natiijo ah oo la taaban karo ay ka gaari la'yihiin, balse ayaga ayaa khasaare weyn kala kulmaya Iiraan marba marka kasii dambeysa. Inkastoo Ayatollah Cali Khamenei uu ku baxay gacanta cadowga, haddana ma uusan ahayn wadaad diimeed oo keliya, ee waxa uu ahaa xildheere siyaasadeed oo u dhabar adeegay 10 sano oo cadaadis ah. Daawade, maxay kula tahay hogaamiyahan? Miyuu ahaa shakhsi sameeyey waxqabad la taaban karo? Sidee u aragtaa nidaamka xukun ee uu dhisay? Sidoo kale, ma u malaynaysaa in wiilkiisa ee Mujtaba Cali Khamenei uu noqdo sida aabihiis oo kale, maadaama xilligan uu ku fadhiyo kursiga ugu sarreeya dalka? Nagula wadaag aragtidaada qaybta hoose ee kommentiga. Haddii aad muuqaalka ka heshay, fadlan like saar, sidoo kalena subscribe saar. Mahadsanid.